waan idin salaamay saaxiibayaal ku soo dhawaada Muscab Rikaaba maanta waxaan idin sharxi doonaa film xiiso badan kaasoo lagu magacaabo Ayam. filimkan wuxuu ku bilaabanayaa wiil lagu magacaabo Yoon Woo oo riyo ku riyooday uga kacay hurdadii kadib wuxuu damcay inuu cabo koob biyo oo uu saaran miis u dhow balse qof ayaa u soo riixay caaga biyuhu ay ku jiraan. Yoon Woo muusan ogeyn bilowgii cabitaankiisa laakiin muddo yar kadib wuxuu arkay gabadh geeska fadhida durbadiina wuxuu ku saxday biyaha. gabadhiina waa gabadh sii fadhida meesheeda waxaana markiiba qolka soo gashay Yoon Woo walaashi Minji taasoo maqashay qaylada halkaasoo iyana ka caabsatay inay soo weerarto gabadhaas isla markaana waxay sariirta la kortay walaalkeed Yoon Woo waxayna u aragtay inay gabadhani ay tahay reer aakhirada waxaana durbadiiba qolka soo galay Dr. Cha oo ahaa aabaha Yoon Woo iyo Minji una sheegay inay gabadhan ka socoto dhankiisa lana noolaan doonto familkooda ayna tahay walaashood oo kale. Minji way deenaynaysay gabadhan inay ogaato cidda ay tahay balse Yoon Woo ma uusan doonayn oo aabihi ayaa mar walba u keenay fikrad qaldan. Dr. Cha waa saynisyahan muddo badan ku mashquulsanaa inuu isagu wax sameeyo caruurtiisana uu daneeyaa. Dr. Cha wuxuu u cadeeyay Yoon Woo iyo Minji inay gabadhan cusub ay tahay gabadh ka samaysan qalab Android ah oo robot ah taasi oo laga sameeyay qalabyo kala duwan. Dr. Cha wuxuu wali u sharaxayaa caruurtiisa gabadhan cusub ugana sheekeynaya awoodeeda isla markaana way yaaban yihiin Yoon Woo iyo Minji iyo xiisaynaysa gabadhan robotka ah ayaa weydiinaysa su'aalo isla markaana waxay la yaabaysaa caqliga gabadhan waxayna ula baxday magaca Aniya isla markaana ku soo dhaweysay xaafadda. subaxdii xigtay Minji waxay Aniya u kaxaysay iskuulka waxayna batay fasalka oo dhan waxayna tiri Aniya waa gabadh inaadeertaya isla markaana ah gabadh Mareykan dhammaantood waxay ku farxeen ardayda cusub ee ajaanibta ah. Minji waxay Aniya u kaxaysay dhanka iyo Yoon Woo waxayna u sheegtay inay u baxayso safarkaasoo ah safar shaqo balse Yoon Woo wuu diiday inuu robotkan caawiyo waxayna Minji ka codsatay Yoon Woo inay maqnaan doonto hal maalin oo kaliya. Aniya ayaa sidoo kale ka murugootay safarka Minji kana codsatay inaanay aadin safarkaas. Minji ayaa Aniya u ballan qaaday inay u keenayso hadiyad qaali ah wayna ka tagtay. Yoon Woo ayaa ka codsaday Aniya inuu u kaxeeyo dhankaas iyo xaafadda. Aniya ayaa sidoo kale ku tiri Yoon Woo walaal ha warwarin waxaan ku laabanayaa iskuulka gurigana aniga ayaa tagaya. dhinaca kale Yoon Woo hurdo way ka soo dhici weyday isagoo danaysan inay aabihii wax ka qaldan yihiin. Yoon Woo wuxuu go'aansaday inuu waco Dr. Cha. Dr. Cha ayaa u sheegay inuu soo dhow yahay isla markaana uu rabo inuu arko Aniya. nasiib darro qof ayaa soo weeraray Dr. Cha oo taleefankii ka qaatay. subaxdii xigtay Jinya iyo Tai He ayaa saaxiibo la noqday Aniya si kastoy ahaato. Aniya waa qof aamusan oon hadal badnayn sidoo kale Aniya waa mid akhrinaysa qaabka bini'aadamku u nool yahay maadaama ay iyadu tahay robot. dhanka kale Yoon Woo wuxuu jawi haasaawe kula jiraa dhigiisa Sulji waxaana u imaanaysa nin ay Dr. Cha isku shaqo ahaayeen. Kevin wuxuu ka walaacsan yahay xaaladda Dr. Cha wuxuuna Yoon Woo u sheegay inuu telefoonka ka qaban waayay Dr. Cha. Kevin sidoo kale waa mid jecel Minji gabadha Yoon Woo walaashi. Yoon Woo wuxuu Kevin u ballan qaaday inuu u soo sheegi doono xaaladda aabihii Dr. Cha. maalintii xigtay Minji ayaa u soo galaysa Aniya oo isu daawanaysa muraayadda aadna ugu faraxsan nolosha bani'aadamka. Yoon Woo wuxuu ku soo laabtay guriga Aniya waxayna daawanaysay Minji oo walaalkeed Yoon Woo dhegta jiidaysa isla markaana u soo kaxaysay dhanka miiska cuntada. Yoon Woo ayaa ah mid ka xanaaqsan Aniya oo la joogta miiska cuntada oo aan haddana waxba cunayn. Minji ayaa sidoo kale dejinaysa Yoon Woo una cadaysay Aniya inay ka mid tahay qoyska. Aniya ayaa iyaduna dareentay dareen nooc kale ah oo ah dareenkii markii ugu horeysay ay dareentay. qaybta xigta Kevin iyo Minji waxay ku kulmeen baarka cabitaanka. Kevin wuxuu ka murugsan yahay xaaladda Dr. Cha oo ah aabaha Minji. Kevin ayaa sidoo kale kala hadlaya Minji xaaladda robotka. Minji ayaa ka dalbanaysa Kevin inuu u raaco xaafadda si uu u soo arko Aniya ayaa ka soo rawaxday iskuulka waxayna arkaysaa nin wata dhar madow oo iyada doonaya ahna ninkii dilay Dr. Cha. Yoon Woo ayaa durbadiiba u imaanaya oo ku aqarinaya meel beer ah kadib markuu tegay ninkii Aniya ayaa Yoon Woo u sheegtay inuu ninkani ahay nin wanaagsan isla markaana uu yahay nin dilaa. dhanka kale Aniya ayaa la kulantay Kevin iyo Minji.
Kayfin ayaa doonaya inuu Aniya geeyo laabka balse way diiday waxayna ku celcelinaysaa Minji ayaan la joogaya. Lamaanayaashuna aad ayay uga doodayaan in ribotkan la ilaaliyo. Minji ayaa Aniya ka codsatay inay guriga gasho. Aniya ayaa iyadu daawanaysa TV-ga. Dhanka kale maalintii xigtay Aniya oo iskuulka joogta, wiil ayaa siiyay hadiyad boombale ubax ah kana codsaday inay haasaawe aadaan. Dhammaan kalaasku wuxuu ku jeesjeesayaa hadalka ka soo yeedhay inanka hadiyada siiyay Aniya wayna ka soo horjeesanayaan. Taas dhigeeda gabadh ayaa u gacan qaadaysa Aniya balse ribotka ayaa si dhaqso leh u joojinaya weerarka gabadhan. Jian Tai Hee iyo Aniya waxay si wada jir ah u taagnaayeen dibadda. Waxay sidoo kale gabdhuhu go'aansadeen inay ka maqnaadaan maalinkaas iskuulka. Inkastoo aysan Aniya murugo ku hayn haddana way ku soo biirtay waxayna aadeen habluhu game wareeg walbana waxay ahayd mid guuleysanaysa Aniya. Isla goobtaas waxaa jirtay hees lagu jaasayay oo ay ka baratay TV-ga saacada kadib. Jian Tai Hee iyo Aniya waxay ka tageen goobtii waana markii ugu horeysay ee ay dhoola cadayso Aniya iyadoo dareentay qiimaha saaxiibtinimada. Yong-woo ayaa ku riyooday Aniya oo meel khatar ordaysa. Intaa kadib wuxuu indhaha kala qaaday Aniya oo ku jiifta laabtiisa iskana dhigaysa Minji. Kadib aad ayay ugu qoslaysaa. Maalinkii xigtay waxa ay ku kulmeen Yong-woo, Aniya iyo Sol-ji dhanka iyo baarka. Yong-woo iyo saaxiibadii waxay bilaabeen haasaawahoodii isla markaana Aniya ayaa dareemaysa masayr waxayna niyadeeda ka dhaadhicinaysaa Sol-ji inay tahay naag xun. qaybta xigta Yong-woo oo jooga guriga waxa uu soo gashay Aniya waxayna ka hadlaysaa sheekooyin ay ku tilmaamayso Sol-ji inay tahay qof xun. alla dumara. Yong-woo kamaysan dhaadhicin sheekada ribotkan wuxuuna dareemayaa sida ay sheegayso Aniya si ka duwan. Sidoo kale Kayfin ayaa u imaanaya Minji isagoo ka codsanaya inay u raacdo baarka balse waxay u sheegaysaa inay tahay dhalashada Aniya isagoo kala doodaya inay Aniya tahay ribot oo aysan ahayn bani aadam. Minji way ka cadhoonaysaa. Minjina si dhaqso ah ayay u wacaysaa Yong-woo waxayna u sheegaysaa inay Aniya ka soo kaxayso iskuulka oo ay iyadu qaban qaabinayso xafladda dhalashada Aniya. Yong-woo wuxuu Aniya keenay dhanka iyo shoppingka waxay doonaysay Aniya wuu iibiyay. Soo noqodkiina sabrayskii Minji, Kayfin, Tai Hee iyo Jian ayaa markaa iyana u sameeyay keegii dhalashada. Subaxda xigta Aniya iyo tiimkeeda waxaa loo doortay tartan sports oo dhici doona isbuuca soo socda. Waxayna sameynayaan training waxayna Aniya bareen dhammaan xeerarka iyo sida ay u ciyaaraan bani aadamku. Tai Hee ayaa aragtay Aniya oo kaligeed ku jirta fasalka isla markaana jaajar gashanaysa madaxa maadaama uu dabku ka dhacay aad ayayna u naxday. Minji ayaa dejisay Tai Hee oo argagaxsanayd waxayna Aniya Minji weydiisay sababta ay uga duwan tahay asxaabteeda waxayna ku wareertay dhanka iyo jiritaankeeda. Minji waa mid isdhaafinaysa Aniya. Dhanka kale Aniya ayaa isku dayaysa inay saaxiibadeed Tai Hee ka raali geliso xaaladii ka dhaxaysay ee galaaska. Taayana way iska indha tirtay raaligelinta saaxiibadeed waxayna ku tiri hadal saameyn ku yeeshay Aniya taasoo ku kalifay inay banaanka u cararto Aniya. Yong-woo ayaa xasuustay riyadii ahayd inay Aniya meel cidla kaligeed ordaysay. Kadib wuxuu kaxeeyay dhammaan tiimkii waxayna dooneen Aniya. Tai Hee waxay dareentay qaladka raaligelinta ay ku diiday saaxiibadeed Aniya ay tahay sababta iminka loo waayay. waxaana Aniya helay ninkii dilay Dr. Cha isla markaana dabkii ayaa ka dhacay Aniya waxayna Janice u ahayd ninkan dilaaga ah markiiba waxaa soo gaaray tiimkii uguna caga jugleeyay inay wici doonaan booliiska ninkiina wuu cararay maalinta xigta Tai Hee waxay weli iska indhatiraysaa raaligelinta Aniya waxayna u furtay Aniya box ay ku dalbanayso weli raaligelinta saaxiibadeed Tai Hee maalintii xigtay Yong-woo wuxuu jawi kula jiraa shimbirtiisii Sol-ji waxay ugu waramaysaa saaxiibkeed inay xiriirkooda ka dareentay gaabis ay walwal xoogan ka qabto kulankaas kadib Yong-woo wuxuu iskuulka ka soo kaxaynayaa Aniya kadib Aniya ayaa dhulka ku tuuraysa boorsadeedii Yon ayaa damcaya inuu qaado boorsada nasiib darro dhulkaba kama qaadi karo taas bedelkeeda Aniya ayaa shuminaysa Yon waxayna u soo bandhigaysaa xiriir Yon wuxuu isna odhanayaa qudhaydu waan kula qabaa dareenkaas
maalinta xigtay iyon wuxuu qaadayaa laptop kadib markuu furo wuxuu arkayaa fariin uu aabihii u soo dhigay ka hor inta aanu dhiman taas oo ugu cadeynayo inay Aniya tahay robot awood u leh inay dareento dhammaan waxyaalaha bani aadamku oo dhan dareemayaan isla maalinkaas waxaa mar kale imaanaya ninkii dilaaga ahaa Aniya ayaa iska caabinaysa waxaana dhex maraya dagaal waxaana markiiba u imaanaya iyon Aniya waxa way ku farxaysaa nasiib xumo ninkii wuxuu tooganayaa Aniya taas oo muddo 6 bilood kadib aynu arkayno Aniya oo dib loo hagaajiyay balse waxay dhaawacaas ku weyday dhammaan xusuusteedii iyon iyo Minji waxay markaas fahmeen inay Aniya u baahan tahay in dib laabka loogu celiyo balse Kevin ayaa weydiiyay Aniya magaceedii sayniska nasiib wanaag way saxday filimkeenuna wuxuu ku soo dhamaanayaa Aniya oo sheegtay magaceedii taas oo cadeynaysa inay dib u heshay xusuusteedii 100% ay fiican tahay please subscribe channel-ka naguna soo biir mahadsani